shalay oo taariikhdu ay ahayd 27 Juun 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ka dhacay laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah taariikhda Soomaaliyana muhiim ku ah midda koowaad waxay ahayd matalaadii gobolka Banaadir ee aqalka sare midda labaadna waxay ahayd hadal jeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka labadaas arrimood waa laba arrimood oo taariikhda muxuu ahay siyaasadda Soomaaliya iyo dawlad dhisidda labadaba laba arrimood oo muhiim u ah markaan imaado gobolka Banaadir iyo matalaadiisa waxaan rabaa isbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxa la hor keenay mooshin lagu soo bandhigay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo dadaal dheer kadib shalay waxa la ansixiyay 13 xubnood oo mustaqbalka ku matali doona Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah dawlad dhisidda Soomaaliya maalinba meel bay soo mareysay maalin walbana waxba ku soo dirsoomay maalinna waxba ka muxuu ahay hagaagay waxa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka Banaadir waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badan oo ay runtii Soomaalinimada ah oo ay ka geysteen dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa ayaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas mooshinka aan sheegaya ayay qoreen waxay horgeeyeen floorka baarlamaanka oo laga dooday kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guulaystay in la meel mariyo 13 kaas xubnood waa ilaahay mahadii ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas'uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan taariikhda dadka reer Banaadirna waa arrin hore u socotay runtii muddo dheer ayaa lagu taamayay arrimahan in ay soo socdaan ay soo dhaqan galaan waana lagu guulaystay arrintaas waxaan leenahay dadka reer Banaadir waxaan leenahay hambalyo in maxaan ku daayay ay sidaas sameeyeen xildhibaanadana waxaan leenahay waa mahadsantiin waxa la joogaa waqtigii ay dhici lahayd doorasho qaran ee xilli xilaadka hay'adaha dastuuriga ah ee heer federaal shalay oo ay taariikhdu 27 bishii Juun 2020 waxa golaha shacabka hadal jeedin ka sameeyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim hadal jeedinta guddiga oo muddo laga war dhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tanitaan u dhiganayba ma ahaba wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku raad dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen laana lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan dhibaato wadanka waa ka jirtaa wax qabadkoodu wuu gaabnaan karaa laakiin waxa dhabta ee jiro in dadku u sheegaan iyo wadada la qaadayo ayay ahayd muddo 3 sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda annaga diyaar ay naga tahay doorashada annaga farsamo yaqaanaan nahay siyaasiyiin ma ihin doorashada waa naga diyaar hase yeeshee hadal jeedintii guddiga waxa ka soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay ummadda u soo bandhigeen inay ruux dheeraysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayay doorashada dalka isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay sidoo kale hadal jeedinta guddiga waxa laga dheehan karaa muddo kordhin riman muddo kordhimo kale ma aha midda hadda ay sheegeen oo 9 bilood oo saana iyo sanad iyo maxaan ku yiraahday barsaana iyo ma aha waxa laga sii dheehan karaa muddo kordhino kale ayaa ay dabada ku wadataa muddo kordhintaas koobaad ee shalay guddigu ay hadal jeedintooda ku soo bandhigeen